golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa bartamihii sanadkii 2022 ansixiyay mooshin ay Soomaalidu ku helayaan xarun dhaqan iyo madadaalo oo u gaar ah taasoo ay uga faa'iideysanayaan arrimo kala duwan. Mooshin uu tirsigiisu yahay ma 47.29 ayaa lagu sheegay in lagu aasaasayo xarun dhaqan iyo madadaalo ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin Soomaalida da' walba oo ay jiraan. Francis Nasiata oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto lagana soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ayaa golaha horgeysay mooshinka iyadoo taageero ka helaysay duqii magaalada Toronto ee xilligaasi John Tory. 22 kamid ah 25 xubin ee golaha deegaanka xilligaasi ayaa u codeeyay hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada ee Soomaalida Toronto. ku dhawaad 3 sano kadib wasiirka wasaaradda guryeynta ee arrimaha bulshada Canada Ned Erisken Smith ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay $20 milyan oo lagu dhisayo xarunta Soomaalida ee Toronto oo dhul ka helay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto. wasiirka horumarinta caalamiga ah ee Canada Ahmed Hussein duqa magaalada Toronto Olivia Chow xildhibaano qaar ka tirsan golaha deegaanka iyo iskuulada Toronto iyo qaar ka mid ah Soomaalida Toronto ayaa goobjoog u ahaa markii wasiirku ku dhawaaqay lacagta. This is the very first announcement I have made personally. Tan waa ku dhawaaqistii ugu horeysay ee aan shakhsi ahaan sameeyay ayuu yiri sababtoo ah waa mid i qusaysa aniga iyo bulshadeena. waa $20 milyan oo waxayna noqonaysaa ayuu yiri mid ka mid ah 4 ilaa 5 mashruuc oo guud ahaan Canada helaya lacagtan. waxay lacagtan ku helayaan ayuu yiri dadaalada iyo taageerada ay sameeyeen bulshada iyo guddiga taasoo isbedel ku sameyn doonta Soomaalida Toronto. Zakaria Abdulle oo ah madaxa The Somali Center for Culture and Recreation oo loo soo gaabiyo SCCR oo ah urur ay ku bohobeen dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray oo suuro geliyay arrinkan ayaa ku dhawaaqista kadib sheegay inay tahay arrin taariikhi ah oo ay sugayeen 10 sano. Soomaalida qaar ee degan magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyay hirgelinta xarun Soomaalida u gaara. arrin aad u fiican waaye inay hesho meel ay uga hadlaan arrimaha heesto oo khuseeyo dhalinyarada sida familado kale horey u malahaan jirin qowmiyadaha kale meel ay uga doodaan arrimahaas ay haystaan. marka waa arrin aad u farxad leh go'aanka meeshan waxay ka kooban tahay gym leedahay meel sports ay leedahay waxay kaloo leedahay ay sheeg maxaa waa masaajida laga dhisi doono waxyaabo badan meel waxa waa marka wax badan ay wada keeni doontaa marka waxay ku falqayn doonaan marka waxyaabaha ka haysto problemadooda marka arrin aad fiican oo soo dhaweeyna. hooyooyinka ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinayay sidii loo hubin lahaa helista xarunta Soomaalida. waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageeridda dhalinyarada hawsha wada. waxaan kaloo aniga ku darsanayaa in dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Toronto ay ka qaataan qayb libaax wiilashaas dhalinyarada ah oo ay wadankan ku dhasho ku soo koran garabkooda la istaago waxna lala qabto. aan ku leeyahay wax alaali waxay u baahan yihiin waliba annaga haddaan nahay hooyooyinka garabkooda la taagana heel iyo hoo waxay u baahan yihiin. kadib ku dhawaaqista lacagtan waxaa la rajaynayaa inuu bilowdo dhismaha xarunta kaasoo ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan Soomaalida degan Toronto.